يا qalbiga wuxuu saliimku waxyaabaha bukaysiiya ama cudur ka geliyana waa in bani aadam kasta xaqdi aad u qaado. dadkan walaalaha waaye kii ku dhibana cafi, kaad wax gaarsiisana cafiska dalbo, qalbigaaga wanaag baa gaaraya. nabiga sallallahu alayhi wasallam asoo masaajidka fadhiyaa nin soo galay, ama intuusan soo gelin buu yiri albaabka waxaa ka soo geli doona rajul ahlu jannaha. allahu akbar. nin adduunka maraayo masaajidka soo gelaya haddana ahlu janna nabiga uu yiri wax sahlan ma aha, camalka uu ku gaaray wax fudud ma aha. waxaa soo galay nin weysadu ka tifkhayso, gacantiisa bidixdana dacaskiisa ku wata, saabuu u soo galay uu iska fariistay. waa la kala yaacay. maalintii labaad buu yiri albaabka nin ahlu janna ka soo geli doona. waxaa ka soo galay isla ninkii weysadu ka tifkhayso, gacantiisu ku wataa dacaskiisa, masaajidkuu soo galay. maxaa ka tifqaaya? weyso. maxaa naga tifqa? qamra soo maaha. maxaa ka tifqaaya? biyo weyso. waxaa naga tifqaaya biyo najaaso. waxaa ka tifqaaya weysadii ilaah amray subxaana wa tacaala. xan iyo balaaya naga tifqaysa. maxaa ka tifqaaya? biyihii weysada. sidaa darteed buu iska fariistay. maalintii saddexaad ayuu nebigu yiri isla ninkii baa soo galay. mar allaala markuu soo galay la kala tegay, nin baa dabagalay. wuxuu raadinaya camalka uu ahlu janno ku noqday iyo waxa uu sameeyo. wuxuu ka waayay salaad dheeraad ah, soon dheeraad ah, amar kale oo dheeraad ah, ee camal fiican oo dheeraada uu qabto ilaa waxay dadku ay sameeyaan maahane. walaalo maxaa samaysaa? nebiga 3 maalmood saa yiri inaad jannada ehelkooda tahay. waan seexdaa buu yiri qalbigayga oo saliim ah, qalbigayga oo caafimaad qaba, qalbigayga oo bogsan, qalbigayga oo aan bukoonin. hal qofood oo muslim ah xaqdi uma hayo, hal qofood oo muslim ah qalbigayga xumaan uguma jirto. suu u jiifa markuu soo baraarugo oo dhinaca kale isu gedinayo wuxuu yiraahdaa ilaahayow i cafi, ummadda waan cafiyay. ilaahayow isaamax, dadka waan saamaxay. ma ku jirtaa qalbigeena? maalintii qalinkuu diidayna xol baad u haysaa. maalinkii mijin qaada noo diidayna maba la hadalna kaa warkiisa iska daa. maalintii ku tiri soo bax meel ii raacay kaa cudur daaratayna ilaa 7 daad ay ka dhasho xol baad noqonaysaa. xaaladda noocaasa qalbigeenna ku jira. ninkaana wuxuu leeyahay ilaahayow ummadda waa saamaxay, anigana iska kay saamax. ilaahu cidaan wax u haysta ma laha, kii i dulmiyey iyo kii i caayay, kii dhibaatii gaarsiiyey, kii ugu xadgudbayba. aad ha loo dadaala qalbiga. waxaa lagu daaweeyaa oo ugu horeeya waa dikriga ilaasaan soo tilmaanay, aqrinta qur'aanka. walaal qalbigay nadiifisaa. allahu nazala axsana alxadiid kitaaban mutashabihan mathaniya taqshaciru minhu juluudu aladiina yakhshawna rabbahum thumma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ila dikri illah. waxyaabaha qalbiga nadiifiyay ka mid tahay. qalbiga waxyaabaha lagu daaweeyo walaalayaal ma aha saabuun, ma aha shaambo, ma aha cirbad, ma aha kaniini, ma aha wax intaad meel u gasho saf loo baahan inaad soo iibsato. waa wax fudud oo aad iyo aad u wanaagsan. waa qalbigaaga oo ilaahay ku xirta subxaana wa tacaala. waa qalbigaagood muslimiinta qishkii khiyaanada uga dayso. waa qalbigaagood dadka muslimiinta ka jeclaato. waa qalbigaagoo nebi maxamed ku weynaada sallallahu alayhi wasallam. waa qalbigaagoo khayrka iyo wanaagga aad ku siyaadiso. waa qalbigaagood ilaahay ku xirta subxaana wa tacaala. intaasoo dhan haddii la sameeyo khayr iyo wanaag baa la gaarayaa. adduunkana cizi baan ku noolaanaynaa. quluubta aan hagaajino, quluubta aan nadiifino, quluubta aan ka dhigno quluub ila subxaana wa tacaala jecel yahay. ilaahay dadka wuxuu ugu neceb yahay dadka qalbiga qallalan leh, wuxuuna ugu jecel yahay dadka qalbigooda qur'aanka iyo diinka iyo amarka alle ku soo jeeda. ilaah xaqa waxaan ka baryaa inuu xaqana waafajiyo, طاعة الدين تنغصك سبحانه وتعالى. قلوبتنا إلهي هكذا قلوب نظيفة وعافمات قبتا. ربنا جعل هذا إلهي هنقبت بهذه قلبي قللا ونار جهنم الله وتلقى إلى سبحانه وتعالى حنك رجينا يا دمان تنبا خيرك وناجا هي دين تيسين ومركان نغصك بالله توفيق الله سبحانه وتعالى.